Iyadoo goobo caafimaad oo laga hirgeliyay dalka ayaa qayb ka qaata badqabka iyo badbaadinta dadyo badan oo halis u geli lahaa caafimaad darro awgeed. Maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka Shaafi oo ka duulaya in shacabka Soomaaliyeed khaasatan kuwa ku nool gobolka Banaadir ay helaan adeeg caafimaad ayaa waxa ay degmada Warta Nabadda xaafadda Xamar Bilow waxa ay ka daafureen xarun labaad oo yeelanayo isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Furitaanka xarunta labaad ee laga daafuray degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka Shaafi ka dhawaajiyeen in lagu dabiibi doono dadka bukaan socodka ah. Dhakhtar Tahliil Cabdi Afrax agaasimaha guud ee isbitaalka Shaafi oo daafuray xaruntan ayaa waxa uu ka hadlay adeegyada caafimaad ay qaban doonto xaruntan. Waxaan rabaa in aan halkan uga iclaamino oo aan ugu bishaarayno shacabka Soomaaliyeed khaasatan dadka Muqdisho ku nool gaar ahaan dadka degan xaafadaha wadada Sodonka dhinacyada kore ee xaafadaha Yaaqshiid iyo Wardhigley iyo Howlwadaag iyo inta la xiriirta ilaa iyo wadada warshadaha in isbitaalka Shaafi uu ka furay xarun cusub oo bukaan socod eegta ah isgoyska Xamar Bile taas oo loogu talagalay in waxqabadka caafimaadka iyo daryeelada uu bixiyo isbitaal Shaafi in shacabka loo soo dhaweeyo oo meel ay gaari karaan laga dhigo. Xaruntaasna waxaan ugu talagalnay insha Allah inay bixiso waxqabad caafimaad oo aad u hufan oo ay fulinayaan professoro aad aqoontooda caafimaadku aad u sareyso oo takhasusaad heer caalami ah dibadaha ku soo qaatay wadankana ka shaqeeyay dadkana cudurrada Soomaaliya ku dhacay iyo kuwa caalamka ku dhacay intaba si fiican u yaqaan iyo maareyntooda oo isugu jira dhakhaatiir awal horay uga howlgeli jirtay isbitaalka Shaafi oo weyn iyo dhakhaatiir cusub oo dibadaha ka timid howlo caafimaad oo hufan ay qaban doonaan oo ay ka mid tahay daaweynta cudurrada guud, daaweynta cudurrada haweenka, daaweynta cudurrada caruurta, daawooyinka jirooyinka burooyinka iyo wixii la midka ah, cudurrada faafa iyo cudurrada taranka iyo waxyaabaha la xiriira. Waxaan rajaynaynaa dadka iyagu inay aad uga faa'iideystaan insha Allah. Professor Dr. Shaafi Aadan Dirir oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Shaafi ayaa waxa uu sheegay in ay xoogga saari doonaan sare u qaadida caafimaadka dalka isagoo tilmaamay in xarunta labaad ee isbitaalka Shaafi uu yeelanayo ay muhiimad gaar ah u leedahay shacabka ku nool degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina Maxamed. Maanta waa Ilaahay xamdigiis in aan xarun cusub inaan ka furno magaalada Muqdisho. Ujeedka xaruntaas loo furayna waxa weeye in loo dhaweeyo ummadda Soomaaliyeed ee magaalada ku nool adeegyadooda caafimaadka oo aasaasiga ah oo qofka qalitaamada meel walba laguma samayn karo. Adduunka laftiisa saas weeye sentaro ama xarumo gooni oo qalitaanka lagu sameeyo jira oo dadka referral ahaan loogu soo diro. xaruntaas waxay noqonaysaa xarun shaybaarka iska leh daawataysan haysata dhakhaatiir oo takhasus leh ay joogaan marka in ay problemka ama dhibka haysta ay ku xaliyaan. Haddii wax ka weyn oo ballaaran ama qalitaan iyo wax kale u baahan isla magaaladii weeye marka waxa loo diri doonaa Shaafi Hospital baa loo soo diri doonaa ilaa idankiis laakiin waxa loogu talagalay ilmaha ama dhallaanka hooyada dadka waayeelka waxaasoo dhan inay ka qabtirto baahiyahooda caafimaad iyagoon meel fog soo aadin. Sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Shaafi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen xaruntan bukaan socodka ah ee uu yeelanayo isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Mustafa Xasan Cabdi, warbaahinta qaranka, Muqdisho.